maanta mawduucan wuxuu ku saabsan yahay sidee loola hadlaa gabar aad aqoonin. way adag tahay gabar aad aqoonin la hadashid, balse waxay rabtaa ragnimo iyo geesinimo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا سلام أصحاب قاليقة كسر وهذا موقع كل عصب. أنت الموقع جودي كنا بفضل هذا التمر كوي جنا كسب بقولي سوينا سبسكرايب صارتا أدركوا بتاعنا يس ها واسوق واللي جاي موقع صح ما عنده بس ما حد لا يسوي تعرفنا حابين من كم تاع ما أنت موضوع إنه كسب سياحي سيده لو له الله جبر هذا قونين وأركته جبر هذا قونين الله هشت برسه وحير بتاع رجنمه يجي سينما يس أنا waxaan ku siinaa kaliya talooyin yar hadii aad sameeysid gabadhaas aad ka helayay aad ku soo jidi kartid marka mar rabaa babada ku badiyay tartiib soo dhageysan ku leeyahay jabidigana soo qaada. ragow waad u baahan tihiin inaad barataan sida gabdhaha loola hadlo. xiriir inaad dumarka la yeelato way ku fududaataa marka aad garanayso sida loola hadlo ayaga. in la hadlo gabdhaha waa baashaal noloshaadana way u wanaagsan tahay. marka soo ogow waxa ay ka helaan inay ka hadlaan ayaga, sidoo kale wada sheekaysigaaga ka dhig mid fudud oo khafiif ah. ugu horeyn baro waxaad gabadha ku dhihileed. weligaa ma kugu dhacday inaad weydo waxaad ku dhihileed gabar aad hadis barateen? maanta waxaan ku sheegi doonaa waxyaabo aad gabdhaha kala hadli lahayd. kow, ka hadal ayada, weydii waxay xiisayso una jawaab adigoo topic naftaada ku saabsan soo qaadanaya. inaad wada sheekaysiga badankiisa ayada u badiso waxay keeni doontaa inay ka sii hesho. labo, noqo qof fani ah oo qosol leh. qosolku waa mid ka mid ah wadooyinka ugu fiican ee lagu tago gabadh qalbigeeda. qosolku wada sheekaysiga wuxuu ka dhigaa mid aad u macaan. saddex, ka hadal waxa ka dhacaya hareeraheeda ama hareerihiina. haddii wax sameynayso wax ka weydii waxaasi, waqti ayay ku siin doontaa inaad ka sii fikirto waxyaabaha kale ee aad weydiin lahayd ama kala hadli lahayd. qodobka xiga, ka qosli ayada. inaad barato sida gabdhaha looga qosliyo waxay ku siisaa faa'iido badan, waxayna keentaa inay gabdhaha ku sii jeclaadaan adiga. ugu dambeyn, ha iloobin inaad ammaanto gabadha. isticmaal erayo soo jiidasho leh oo ay ka heli karto. weydii su'aalo ay ammaan ku jirto. weydii su'aalahan oo kale: caqligan tirada badan halkeed ka keentay? qof fani ah ayaa tahay, maxaad mar hore ii baran weyday? dadka waad ka duwan tahay, iyo su'aalo wanaagsan oo la mid ah. I hope waa intaas soo shuruud haddii aad samaysid gabadha aad aqoonin oo ku jiidanaad leeyahay. man rabina babada ku badan intaana muuqaalkan ku goobinaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku leeyahay haddii aad ilowday inaad subscribe saaratid walaal please subscribe garay channelka hana ka ilaawana like saatid commentiga waa noo muhiim insha Allah. si kasta aad kuma sidin daawashada muuqaalka daawto insha Allah dhamaantii waxaan rajaynaa farxad bash barwaaqo reeleen cimri dheer taas baa waxaan muuqaalka insha Allah. bye bye.